مقع وفتك بلارنا كودني وعن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan tacsiin u dirayaa oo aan ilaahay ka baryayaa in marxuumkii shilka ku dhintay uu ku naxariisto jannada ilaahay ku qaraabiyo qabrigana u nuuro ehelkii iyo dhammaanteenna samir iyo iimaan u ka siiyo waa waqti dambe waa cadceed kulul ilaa iyo saaka sagaalkii baad joogteen waan jeclaa inaan in badan hadlo laakiin dib baan u dhiganayaa waxaan idin leeyahay marka hore mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idin laba kelmadood oo baadanayaa mid waa aniga waxaan idin sheegayaa halkan waxaan imiday sanadkan horaantiisii anigoo raadinaya oo idin sheegay inaan u tartami doono jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga waddani alxamdulilah maanta waxaan ahay musharax u taagan jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga waddani guusha inaan ku guulaysto kursigaasi waxay ku xidhan tahay inteeda badan reer awdan iyo reer salal waxaan rajaynayaa sidii uu cali aareye sheegay inaan laba farkiinnu inayna laba meelood u qaybsamin ee ay meel keliya tegayso meeshaasina tahay waddani tahay noqon maayo anigu waxaan ahay musharax u taagan jagada madaxweyne ku-xigeenka ma ihi musharax reer ma ihi musharax qabiil ma ihi musharax cid gaara waxaan ahay musharax u taagan jagada madaxweyne ku-xigeenka somalilan ee xisbiga waddani waxaan ballan qaadayaa inaan noqdo nina u siman tahay somalilan gadh ilaa gadh lowya caddo ilaa laasxaafuun noqon maayo ciday musharaxay u kala sokeeyaan waxaan rajaynayaa xilka haddaan ku guulaysto inay somalilan ii mid tahay inaan cadaaladdeeda nabadgelyadeeda iyo waxbarashadeeda inaan ummadda uga shaqeeyo haddii alla yidhaaho idinka mid keliya idinka qabsanaya waxay tahay midnimo waad ka yar tihiin dad la qayqaybiyo oo wax loo kala sheego idinka keliya maahine somalilan baaba ka yar dad wax loo kala sheego oo qabiil lagu kala xereeyo oo meelo loo kala oodo waxaan idin rajaynayaa inaad midnimadiinna ilaalisaan dantiinna ku jirta danta somalilan baa ku jirta waxaan rajaynaynaa xisbiga waddani wuxuu u taagan yahay isbeddel ma aha magaca keli haatiye kelmadda keli haata maaha wuxuu u taagan yahay uu diyaar u yahay inuu ka dhabeeyo isbeddelkaasi oo ummadda somalilan galbeed iyo bari iyo inta dhexaba ay wadaagto cid waliba ay hesho waxay xaqa u leedahay anna inta dastuurkii ogolyahay awooddayda haddii aan kursiga ku guulaysto waxaan ballan qaadayaa inaan ka shaqeeyo sida arrintaasi u xaqiiqoobi lahayd waxaan ka xumahay musharaxa madaxweynaha xisbiga ahna guddoomiyaha xisbiga hadda gudoomiyaha golaha wakiilada oo safar ku maqan oo maanta ay u suurtoobi weyday inuu naga soo qayb galo wafdiga uu ka mid noqdo oo xafladdan yimaado laakiin waxaan anuu afkiisa ku hadlaya wuxuu iga codsaday inaan farriin qaadaya oo niyo ah inaan idinka soo gaarsiiya iga guddooma badan baynu wada hadli doonnaa waan danta dalka iyo danteennaba ka shaqayn doonnaa waxaan idinkaga tegayaa ilaahay hayna nabadgeliyo ilaahay samada haynaga arsaaqo dhulka abaaraa jira ilaahay haynaga soo furto abaaraha somalilan ha guulaysato xisbiga waddanina ha guulaysto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu